السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan islaamayaa dhammaan tiiman islaamaya salaan kaliya laaba asxaabta abban islaamaya dhammaan assalaamu calaykum. waxaan rabaa inaan idila wadaago clip yar. clipkaas ah maanta inagu Soomaali ah sidaan isu haysano iyo dhibaatada dalkeena ka jirta sida biyo la'aanta maxaa la yiraahdaa caafimaad la'aanta duruufaha baahiyaha gaarka haysta ummadda Soomaaliyeed ayaga oo maxaa la sheeg ku kala nool duruufo aad u kala hooseeya inkastoo dadka qaar bas u nool yihiin haddana danta guud laga wada siman yahay oo marka keena caafimaad doonaya ama keena waxbarasho doonaya dawladda aado dhulkeenu uu yahay dhul ma garanaysaa marka matalan ba saxaafadaha ama bulshooyinka caalamka ay tagaan ay ka soo duubaan baahiyaha ka jira meeshaas oo aad uga yaqaan runtii markaad aragto hadda halkan aan maraya runtii anigu malihi waxaan ka ahay qof ajaanib aan ka ahay laakiin waxay ku tusinaysaa ummaddan sidan wax u dhisatay inay yihiin ummad inagoo kala ilaahay waan ku dhaartay meeshan iminka waa Vienna magaaladan waa Vienna iminka maxaa la ii sheeg magaaladan dagaalkii labaad ee adduunka waa magaaladii ugu badnayd ee dhibaatooyinka ugu badan soo gaadheen haddana 30 sano kadib dagaalkii labaad ee adduunka sidan oo kale ahayd maalin ka dambaysa horumarkeedu wuu sii kordhayaa maalin ka dambaysa horumarkeedu wuu sii soconayaa maalin ka dambaysa waxaana waxay ku gaadheen maxaa la ii sheeg isu tanaasul wada shaqayn isdhegaysi kala dambayn iyo sharci ay samaysteen oo ay ilaalinayaan hadda iminka innaga waxaa jirta inaynu dadkeena madaxda inoo ah inkastoo ay tuugu badan yihiin dadka madaxda Afrika oo dhan haddana waxaa jira mir daacada inaynu keeni tuuga ahaa aynu ku soo dhaweysano maxaa la ii sheeg qabiil ku soo dhaweysano oo keeni ma garanaysaa muwaadinkaan aan qabiil ku fogeyno waxaa ummad baa dhisatay waxaa anigu waxba kuma lihi waxaan ka ahay qoxonti baan ka ahay waxaas maartay waxba kama yahay qoxonti baan ka ahay anigu waddan shisheeyaan joogaa waxaan arkay dowladnimadu macaanka leedahay waxaan arkay dowladnimadu bahalka leedahay laakiin dadka waddanka jooga kulama fahmayaan clipkan waxaan u duubayaa dadka qaar baa u arki kara dadka inta xumaha jecel oo dhan ba si kale dad waddan leeyahay noo soo duubaya waddanka dadku leeyihiin aan ka qaadanay inta wanaagsan haddii aan isku baraarujino dalkan dad baa dhistay aanu dhisano ma ahan wax aad iyo aad u xun ma aha sida bataatan wax xun ma ahan wax kastoo aad aragto waxa laga qaataa inta wanaagsan baa laga qaataa inta ku anfacaysa hadda imka tusaale ahaan gaaladu diinta muslimka intay dhex galaan bay waxa ay isleeyihiin nabiga kuma ahan ama maxaa la ii sheeg faa'iideedii yihiin oo dhan bay kala soo baxaan inkastoo diinta islaamkooda faa'iido wada tahay hadda imka daawo dhulka maraya waa nadiif lacag cirka uga soo dhacday iyo maxaa la ii sheeg ambiyo loo soo diray oo dhulkan u dhistay ma jirto waxa weeye waxbay meel dhigteen sharci bay meel dhigteen cashuuray samaysteen dad bay doorteen dadkoodii baa dalkan sidan u dhistay isla xisaabtan iyo isna tanaasul bayna ku timi waxa weeye ka tuug weeye qabiil ma lahan tuug weeye qabiil ma lahan ka muwaadinkana muwaadin weeye qabiil ma lahan laakiin inagu keena tuugana qabiil buu leeyahay keena muwaadinkana qabiil buu leeyahay wallaahi runtii aad iyo aad waxaan aad uga xumaado mararka qaar aan la murugoodo maandhayto waxaan daawanayay clip soo duubay nin caddaana runtii isagu wuxuu iska dhigaya nin wax qabanaya ama ma garanaysaa bilic laakiin muxuu soo duubaa bilicba muxuu soo duubaa waxa weeye waxaanu horumarin naqaanaa hotel yar meel laga dhisay
وأنا هرمون نقلنا هوتيل يوم مرة لقيت سهر مرة كا ساعد وحمر الساعة حمر الساعة ساعد حتى عن شوقو ساعد وحمر الساعة حالي شيك سقال كي هبينيمو إلا كود هبينيمات كل حمر كرتها هل كان أمني كود هبينيمات مقالة في أنا كل حمر كرتها أمني كل حمر كرتها محل شيك أذكر نينا هاو أما قورا هاو عيد كل عيسى عيد كبويسى عيد الحكوية ليسى عيد منا غيرات مجد حاوي هذا بقى ورمحين لو قدرون هذا مقالة نيروبي وقدر تسوي قرح بمنطقة waxaan tideyni Addis Ababa waxaan tideyni hadda waxa la marayaa oo inoo cusub hadda ay hantideyni ku socoto oo la dhisayaa Turkiga dalkeenina oo artin sidoo yahay qaar waxa koonaya lama aaminay dalka deeyaa ku yaamni kaaga dhigaya adigu marka horeysa kharash ku bixi dadaal ku bixi u soo jeed la shaqeey dawladda kadib baa hantiyaad ku badbaadaysaa hadda imka qaar waxa arkaysa Nairobi dhistay hadda imka Soomaaliya Kenya hadday isku dhacaan hantidoodu waa ka gur iyo cad ka soo baxaya waddankooduna waxay kaliya waxaan ogala cararaynaa inaanu magaranaysaay wana laga duminaya haddaba clip waxaan idinku soo duubay aad ma garanaysaan aynu inta wanaagsan uga qaadano oo aynu inta wanaagsan aynu ka qaadano gaaladu waa dhagar badan tahay laakiin dantoodu waa lama taabtaan waa dhagar badnaadaan laakiin dantoodu waa lama taabtaan awee qofkii aan danta dalka iyo maxaa la ii sheeg iyo midnimada iyo horsocodka dalka aan ka shaqeynayn wax haba yaraatay meeshankiya ma jirto waxa weeye ballanqaadka qofku markuu qaadayo siyaasiga halkan sida ahayd hadduu uga dhabeyn waayo dib isma soo sharaxayo innaga kuwii badagana gatay baa doonaya maanta in xilkan oo qabtaan oo weliba taageerayaal leh Soomaaliya aan sidan si isugu dhaano waxaan anigu malihi dad baa iskale laakiin dad yaale dad anigoo kala waale 9 bilood ku dhashay ina ka yara daadida dhalinyarta daadida anigoo kala ee wadanka u dhashay waxaan awooyaashii baa u tabcay waxaan maar awooyaashii aabiyaash baa u tabcay aniga laakiin awooyaashii maxay iga tageen faqri bay iga tageen gaajo iga tageen dhul bursan bay iga tageen bisaarad bay iga tageen waxay iga tageen inaan dunida quursato waxay iga tageen in dunida markaan soo galiyo sidii dad xayawaan la iska buufiyo waxay iga tageen maxaa la ii sheegay in la yiraahdo dalkiini maad ku laabataan waxay iga tageen in la iyaso waxay iga tageen runtii ma soo koobi karo laakiin inaan kan awoogi baa soo galay dhulkiisa waxa weeye awoogi baa dhulkiisa sidaan u galay awoogi baa dhulkan sidaan u dhisay runtii wallaahi oo bilaahi tallaahi waxyaabaha qaar mararka qaar aan arko markaan arko meesha aan joogo iyo marka dalkaygii aan ka yimi aan xasuusto siiba laga soo duubo barnaamijyo waan khasooba waayo wax maanta la dadkan weyn dheer yihiin oo way ku gaareen horumarkan baana garanayn 9 bay ku dhasheen 9 bay ku dhalan rag baa alla ka dhigay rag baa la inaga dhigay waxa weeye waxa kaliya ee ka badqaba dadkeeni waa dumarka haddaan dumar jiri lahaynna maanta inta yaraan ku dhaqaaqaynaa ma jirteen maanta inta yar aan ku dhaqaaqaynaa ma jirteen waxa weeye war haddaba aan isu tanaasul samayno aan dalkeena dhisano aan dadkeena dhisano bilaa calayk Soomaaliyeed aan iska deena qabiilka ka hargeysa jooga beenta loo sheegayo ka muqdisho jooga beenta loo sheegayo ka boosto jooga beenta loo sheegayo kala saacad jooga beenta loo sheegayo waa dhammaantiin wartuugtaan iska qabanno dalkeena aan dhisano inagu quursi baa dunida wayna quursataa inagu iyo awooyaashin saas inoo galeen inagu ubadkeenayeen aan uga tagin ubadkeenayeen taas kale uga tagin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته